kulanti wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba u maqlaysaan waa saaxiibkiin maxamuud khaliif cali ee war degdeg ayaa hadda soo gaaray barnaamijka noo shargaray hadii ilaahay idin ka dhigo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray guud ahaan dalka ayaa idin socodsiin doonaa iyo dibadiisaba tabiya barnaamijku waa aniga si shargaray wararkii ugu dambeeyay ayaa maqli doontaan hadii ilaahay idin ka dhigo cawaale aadan ninka la yiraahdo ee tuuga ah ee ummadii Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ay ka baxsan laadahay ee stupidka ah ee keenay fanaaniinta inuu musuqmaasuq dhex dhigo bacaaw ka sheekeen doona hadii ilaahay ka dhigo iyadoo ay jiraan dad badan oo ka sheekay barnaamijkan sare waxaan rabaa inaan caaw kala dhigo ninkan muxuu yahay ma fanaan ba ma tuug ba ma stupid ba ma daacuunka fanka waxa la yiraahdaa dadka fanka Soomaaliyeed hostel la galay oo godka ku riday wararkii ugu dambeeyay ayaan markaa idaahaynaa hadii la yiraahdo cawaale aadan sharciga waa lagala laabanayaa aad baan ku salaamayaa brown xarfo wiil direed la dheeray mustafa garaadka beesha daarood aad baan ku salaamayaa iyo sharmaaka iyo dhammaan saaxiibada kala soo galay Gocos Axmed Bulhan isagana aad baan u salaamayaa ninkii cawaale aadan ahaa la dhihi jiray waa legend la dhihi jiray waa ninka fanaaniinta Soomaaliyeed ka dhex muuqda la taageeri jiray heesiisa la dhageysan jiray oo ahaa ninka kaliya oo Soomaalida wax Soomaaliga ku heesa ninka kaliya ee la dhageysan jiray ayaa maanta keenay inuu fanaaniinta Soomaaliyeed ku soo hoslaabto oo fanaaniinta Soomaaliyeed carqaladeeyo oo fanaaniinta Soomaaliyeed midka uu ka tusto uu halkaas uu la galo mataqaan dhaqan xumo marka adeer gacaliye Soomaali weligeed bay soo geeyay nin walba fanaan ma tahay lama rabo fanaan ma soo ahaan jiray baa la rabaa isagu shalay buu fanaan noqday fanaanna Soomaali baa ka dhigtay Soomaali baa soo shacsaadhay Soomaali baa dadka dhigtay maanta farxiye kabayare oo aad aragteen fanaanad qaran inay tahay fanaanad Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed fanaanada ugu caansan buu faraha la galay aad baan ku salaamayaa Basiirka Haye iyo Abaal Cumar Jeesto Miss Daynile marka adeer gacali waxa loo baahan yahay marka aad rabto inaad fanaan la xifaaltantid ama fanaan kale aad mataqaan wax ka sheeg fanaanku waa la fiiriyaa ninkan uu yahay wuxuu yahay taariikh musuuheys fanaanada farxiye ka beer leedahay 2007 fanimada fanka ku soo fiidhay fanaanimada 2007 ilaa iyo hadda waa la dhigeysanayaa waa fanaanad caan ah oo la yaqaan oo geyiga Soomaaliyeed laga yaqaan maxay tahay maanta cawaale aadan midda cawaale aadan haysa maxay tahay masayr baahaya wuxuu hayaa wuxuu leeyahay hadii ilaahay mataqaana ku imaay farxiye kabayr codka computer baa loogu habeeyaa fanaanad mataqaana codkeedu cod leh maaha adiga hadda fanaanad farxiye kabayr ku caayaysid cod baa wax loogu habeeyaa computer adiga kaaga yaa dhageysan lahaa hadaan laptop iyo mataqaana mixer la mariyeen cod yar laga dhigan yaa dhageysan lahaa tuug baa tahay qaa'in ah oo fanka Soomaaliyeedna la soo galay daqdaq iyo fudayd salay markaa ku dhiganeed cawaale waxa la isla markaa ku dhiganeed Omar waxa la lahaa ninkaas loo heliyo ninkaas waa in nin mataqaana laga gardaran yahay haye marka maantana waxa ku dhigtay fanaanadii caanka ayda farxiye kabayare ee Soomaalida fanaaniinta ugu sareysay baa ku dhigtay haye yaa ka rumaysanaya yaa dhahay waa fanaan Soomaaliyeed oo waa fanaan Soomaaliyeed legend baa la leeyahay dalay legend waxa meesha ma joogan tuug baa jooga meesha ilaah iyo islaamnimo ka furtay haye ana runta u sheegaynaa waxa leenahay warniyo cawaale aadanow waa fashilmatay fanaannimada inta ku fashilmatay war male Omar oo shalay soo baxay oo wiil dhalinyaro ah oo cod macaan oo fanaan Soomaaliyeed ah baa ka baxsan waayay haye runta ku sheeg wuxuu dhaadeer waxa isla joognaa Canada wallahi billahi tullahi fartaada ku imaanaya intaas ka gooriyo waa ku dhaglaasaya ku dhaa kaama xisoon laakiin farxiye kabayare waa dumar waa fanaanad Soomaaliyeed waxa kaliya aad maanta ku aragtayna waa dumarnimo ma aha wallahi oo billahi oo tullahi hadaa Mareykan isla joog lahaydeen oo ay nin raga ahaan lahayd oo maanta nin raga adigu tahay iduna waa qof dumar ah kaama xisooteen intaas ka goyn lahayd canfariga waa Soomaaliland matii canfar baa tahay Djiboutiana markii tartamada Soomaalida la qabtay fanaaniinta adduunka tartamadooda waa aragtay la qabtay tartamada adduunka waxa u galaya wiil bala ka dhacay inta askarta wax dhacay waxa tartanka u galaya Djibouti ayaa yaqaan maamul goboleed iyo Puntland bil ay tahay meel yar oo dhul oo intii la sameeyay dawladda Maxamed Siyaad Barre ay dhahday go'a dawlad noqdo bay ahayd maxay tahay
وأديك كان اسكندرية يتهرى كله فنان بلا كان عدو أديك اسكندرية أو نين عد كيس سكوكر سواد اسكندرية عد كاجا وارد مالو البفر إحساس سوقا ميكسر بالا صومر يعني ميكسر ولا ميكسر قرية عد كوا لدو مركا كبعدي بس هو يستف بتقنا هيسا مركا سلوسو تورا أو لدول صار عد كاجا والله بالله تلا هدي اللي قد يسلها عد كا أوريجينال كا دمير بابا نقول الله ديا كل يسلها ولا وسوس لها يا أخي قف صومالي وفنك ميكسر الله مرين مركو هيسي عدكيس أوريجينال كويس واحد بكتير فرحية كبيرة فنانين كله أو متقان ليقان أو يقولون لجن أو متشرتين أبدا متقان متشرتين أدو هو يهرب تقول غيب واحد عدك الصحراء كويس أن ميكسر الله مرين أديك dadku waxa uu sheekaysan waxaan ahay fanaan qaran waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed sinjibaan saakanahay ma taqaan hadii ilaahay ku idmaayo sanka anka ruux ka sabool ah garaadka saqiir kale baba orada garaad saqiir le stupid ku hada baasarka ah fan Soomaaliyeedna waxba fanka Soomaaliyeed wuxuu la maalahan Soomaali waxa lagu yaqaanay fanaan legend ah oo qabyaaladiisa waliga kama soo bixin adigana ugu horeeyay waraab awaala aadaro adoo inta leeg oo heesaagiisa ogaal dhigeysan jiray oo soo jiri jiray ba Omar oo hees soo qaaday ay 4 milyan ugu gaadhay 3 bilood mise 2 bilood ba waxa is dhahday meeshaba ka saarin kan ilaa Kanada isla joogtaan fanaaniinta Kanada fanaanka kaliya ee la islaha uu ka qaadaya oo booska dhan uu ka saaraya fanaankaas waxa is dhahday dhulka la gal ninkaas uu yuusku ku soo bixinba ما هو ماني رجوي وأسكت عليه هذا اللي واسكت الدفاعي أفكي سنة وكهالي أدنكي سنة واسكت عليه لكن فرحية كبيرة أنا عود إنت نكل سيد ناجي والله بلا تطلع الدمر بعدها حتى نرجع على الوقت ما مكرن سيد الدمر كيبان نين عود ضد فرحية كبيرة واسداس عود كذا اللابتوم بالوها بيا بخت سات هاي واسحيسين واحد سكت إنسان بلا كذا أديك مركز هدي أن يدا عقعص أحمد بالحوم سوق بنيا أديك هدي أن تيار لوها بين ميكسر وحنا تيار ميكسر دي لوها بين متهذا مركز عود أوريجينال والله سيد الدمر كوا عيلة لو ما بدك أنا دلاع إلى عود كاجا عود حمض هذا فنان حمض هذا صومالي ده وحتى نينك كلية فنان لماذا قبيلة وجرة نينك كلية إنه كشق يستو أو كهلو عنو أو ريركيس وكبيس وجرة بعدها أنت كلا واحد لو وجرة فنان نمو عود ما تقانا نيند سوجرين أهلا قدره فنان لماذا وحكي جاره هير هلا قدره لكن هذا واحد وجده جاج بخت واحد الجرني بوجده وحرنت كل شيء واويد dadka Soomaaliyeed mid walba ayaa la yareeyay dad bala kuwa habar gidira u jeedo oo soo difaacay wixii ku difaacayaan wax kale ma heesti aalahayd guri cadaada lagu korsho hoobeeya heesta kaliya lagu difaacaya habar gidirtan ku wadata kaliya ma aha cid kale ma jidhaba anagu runta ku sheegaynaa marka waxa tahay ba iska yar fanaan noomatid fanaan qaran noomatid fanaanin qaran waxa noo ah fanaaniinta Soomaalinimada ku faanaya markii la dhaho yaa tahay Soomaali ah markii la dhaho fanaan Soomaaliyeed meesha ma jooga tartamaya dhaha aniga fanaan Soomaaliyeed meel walba waa noo sheegay waxa la taagan tahay fanaan reer Djibouti ay Djibouti ay yaqaan waa maamul goboleed yara waa meel yara oo Soomaaliya ka tirsan oo dawladda maxaa baradhada booliska oo dawlad noqdo ciiso baabi ilaa buu ciisaha Djibouti bal wax sameeyay buu dhayo gaada go'aysa marka adeer gacali awaala aadan tuugtu ahaaday weeye فرحية كبيرة كوس لابنية فرحية كبيرة عدكي ويدادي عدكي فضيحة ويدادي أو نيكا كلا ودي اللي ناق بعد نرجع متى فرحية كبيرة وع نين بكلا عدد فرحية كبيرة تقول عايز بل نرجع نبض هذا حتى هدي فرحية كبيرة وش جايز فرحية كبيرة ولا تنبو إلا وادي له ولا شيء ما توص وعد موبايل كهرة ما فوق من يابلس بدي قنتها مريكا بدي قنتها توس ما وعد ده فرحيه ولا لي waxa iska daa war wala lay ma taqaana fanka saa ku iska daa xitaa wuxuuna hadii la soo sheegayo waa la isla wadaay kara wala la isla jaatami kara laakiin aan nin raga u adeegsatid oo u cid oo aad dhahdo warni waa saa iyo saas qofta waa saa iyo saas warni waxa hadalkaas nin raga ma aha fanaannimada aan sheeganaysana anaga namaba qusaysaba fanaan noomatid anaga fanaan Soomaaliyeed baadan ahayn fanaan reer Djibouti waxa tahay anfariya baatahay nacala stupid ka tahay kula baasar baata runta ku sheegaynaa wax aad wallahi oo billahi tullahi Soomaali wax Soomaali ah u qabatay male hog baa ku riday fankii Soomaaliyeed baa qabiil u bedeshay farxiye kabayare waa gabarlaan dheer gabarlaan dheer dhashay oo mursada ah oo hooyadeed ay tahay majeerteen
reer bicdiyaha balyaa ka laandheeraysan ii sheeg adigoo canfari ah oo Djibouti degan oo Ciisa jarjarka ah baa isu ku dheereeyo oo fanaanida waxa isleedahay lix faaltan oo ay maxay tahay ilaahay baan ku dhaashay qabiil la gaaba ka tahay fanki Soomaaliyeedna awal waxa ba laga shakisanaa inaad tahay fanaan Soomaaliyeed oo dadka qaarkood ma taqaan hadii ilaahay ku idmaayo dadka qaarkood ay ku mucaaradisan yihiin laakiin maanta yar iyo weyn waa lagu mucaaradisan yahay bal maxaa tahay fanaan Soomaaliyeed baa shalay ku dhigtay maanta fanaanad Soomaaliyeed baa ku dhigtay waa isku wada mid annaga dadka noo haysa aan dhageysano heesooda aan ku raaxaysano aan isdhaano maanta waa fanaanin Soomaali mitalaya weey maxay adigu tahay adigu maxaa tahay marka hadlaysid kaliya u hadal anoo cawaale aadanayaan ahay nin reer Djibouti baa tahay nin waxa tahay hadii ila ku idmaayo aan hees yani heesaha waa la dhageystaa heesa macaan waa qaada laakiin runta markii laga hadlo wallahi billahi tullah qalbigana laangaa baa ka tahay dusha korana waxa ka tahay cawaale aadanka qabyaaladiisa maxay tahay waxa kale mar illa waa adiga maanta sa u soo socotay baa farxiye kabayr dusheeda ku soo dhacay awal waxa Omar iyo waxa ay saysay isgalaaji iyo rag baa asaasay rag waa la isla xifaatami karaa laakiin maanta qof dumar ah oo fanaanad ah oo lajin ah oo la yaqaan oo heesadeeda intaas soo dhageysanay oo heesadeeda aan ku raacsan oo wallahi billahi tullahi been ku sheegnay farxiye kabayr waagay fanaanad ahayd oo heesaha macaan ay qaadi jiray oo dhikan heesamaba qaadi jirinba waxa uu qaadi jiray Djibouti oo heeso qaaday hablaha Djibouti mugweyn iyo waxa uu qaadi jiray wax aan la aqoon markaasuu maanta ilaahay baan kugu dhaashay intuu farxiye kabayr isagoo caayay buu nin cod u diray wuxuu leeyahay waa saa iyo saa farxiye kabayr maxaa shalay ahayd baa maanta joogay bal maanta farxiye kabayr oo xitaa fanki maanta xitaa ninka fanaanimadu ay ku cusub tahay oo la dhihi karo fanaan isku sheeg waa adiga ilaahay baan kugu dhaashay fiiri farxiye kabayr goorta ay heesi jidhay iska badaa heesi ma abi qaatid hadda heesi oo iska dhaysayso oo ma taqaan iyada waxa kan maalin walba har yaabeen boqolka heeso soo saaray sida faladegan oo kale ma aha cawaalaada lagu sheegay oo stupidka maalin walba hees buu soo qaadaya waa u jeedeen nik la yiraahdo Omar marka uu karbaashay hanka ruux ka sabo oo la leey garaadka saqiirka ayay sinaatu dhibtaa wax saasaba ku heesay hanka ruux ka sabo horta adiga hanka ruux ka sabo ah oo inta qof isaga soo wicii weeyday baa qof kale wax uu sheegtay war ilaahay baan kugu dhaashay laan gaabnimada kugu dhiman maxay tahay baasir ku ada canfariga Soomaaliya ma tii Djiboutiyaal xun oo waxa tahay meel uu ka yimaado aysan jirin ana runta ku sheegayna wax runta ku sheeg wala Soomaali wallahi billahi tullah nin walba uu ka bumbuunaya wuxuu leeyahay fanaan qaali ah legend hore u soco laakiin anigu runta ku sheegaya wallahi waa legend ahayd oo billahi oo tullah qabyaaladiisto xun oo cadiifad iyo cuqdada gogoysay baa tahay fankana iskaga bax inta aad ku jidid inta aad hore ugu jidday baa noogu filan lugooyo iyo dhibaato waxa maanta aad fanaaniinta Soomaaliyeed waa ka maseersantaa fanaaniintan bal ilaahay ma kugu dhaashay waxa soo qabanaya Garaasami fanaaniinta Soomaaliyeed oo fanaaniin xiliyooda saaran waa fanaaniin codkooda saaran aad ku dumeysay waa lagu waayay waxa ka maseersan tahay maxay u heesayaan waay Soomaal maxay codka badan soo baxaya وأيضا كون سلام يا جراتامي كسر هو برنامج وعواه لنا نيكا قبيلة الاستاء عوال عنفر اللي يرى الصومالي أنا أستبد كقبيلة الاستاء مركا نيكا محات كلا إذا جرات نيكا وعقوف فلان فريق كبير ولتشن فنانات قروي هاستا دقيسو وفوبال وباباي وكوا هيتوا أغني تتودي والله أغني تتودي كور حتى في الفيديو سوون هادو عليا أكل روح كسبولي وحلا لاقون قاضية وأغني واحد تاجرية يالك إسبارة كل شيء هبر كبير نبقى صوت الجنة تاجرنا نارت تاجرنا هذه نارت تاجرنا الجنة تاجرنا وأغني كان يجا تاجرنا واحد كلمة تعقد تاجريا وعقد تاجريا وحوي ها هاست تقولي على لوكري بكو تاجريا هاست هذا اللي 6 مليون دعوتي 7 مليون يبركوا دعوتين oo isaga iyadu wada qaadeen hal YouTube-ka ku jirta hadan dhageysanay waa isaga iyada magaceeda lagu daawaday abni badanti garow ahayd ma taqaan markii leedahay abni badanti garow ahayd ku ekaanay awaalo ogow hada fiir awaalaadan iyo farxiiq weer waa isiqaanay toos bay wata dhageyso iyada lagu daawaday isaga cod male iyada inta iyadu macnaha qaab أنا هو كم يرى فنانة قرن ومسس أبا باي تليبا توقل يستاق
سلام ملتروسان رجوع سكفان والله سلام باوساري فنانad qaran way farxay ka la isku madhalin karo islaan adigu runta u sheegtay ninkanu wuxuu jecel yahay gabigiisa fanka maarad inuu suuqa qartajac ku galo iyo qararac naagtan maaha naag 2005 sano ku jirtay waxay ku jirtaa 11 sano ninka la yiraahdo kaleedo waa garanaysaa barnaamijka degdega ah oo wariye madax banaaya ahay oo aysan cidna qabsan karin laandheer dhalay ma jir oo arti abaan ahay marka jarjar iyo waxa markaa laagaabyada ay soo harana hay iska qeylqeyliyeen marka u joojimeyna anagu aad marka ma jirto waxa weeye Djibouti Soomaali ma aha waa stupid dalay faka Soomaaliyeed ku xaaray daacun ku riday baqti dhalaya laangaaba ilaa Soomaalidu waxa la fiiriyaa laangaabnimo iyo cod macaanimo isku darsan waa fanaaniinta Soomaalida inta kaliya maanta fiiriyaan lama fiiriyo fanaan ma tahay horey u ahaan jiray dheeraantada ma soo gashay aabaha fan ma yahay halkan Google lama fiiriyo maanta dadka la joogo waxa la fiiriyaa laandheer ma ka tahay ma tahay hortiyaata in ma jeerteena ama nin warsan galiya ama nin dhulbaanta ama nin dishiisa tahay wartiya ama nin murursada ah oo adwaar fanaanta murursada دارو بموتك وتري مريحان هدي هذا نهاين هذا عن فريه داتا بخت دلبات ولا وجود كاتيا سوما عادي نكر روتا فيري وحيبا قصيدة كل شيء نكر وعيسى جيبوتيان عيسى وحيا قبيل وحا درتا كميدا درتا وقتها وشرشر كبي قد وشرشر وهذا قولة دحل السوق جاي صومالي ولا قري وحلو قري وحي هايين maxaan ku dhahaa waxay ahaayeen waxa loo qorsmaris ma qaayna maqashay dadka cuna bay ahaayeen qorsmaris bay ahaayeen Djibouti baa loo raray Djibouti waa waqti meel yaro gabigeeda 20 baa jooga ciisaha daga ninkan uu gabigiis isaguna Oromo iskuma dheereerin karo fanaanad qaran farxay ka waxa leenahay codka fiiri codka nin buu wacay waa adiga ku soo waca oo horjooga kula xanta nin buu wacay gabadhu la xantay gabadha ninkii baa codka keenay hadda ma garad nin raga oo ku maqlaya garad islaam marka ku soco freeka bayr wanaagta aragtay heeseeda hadda aan ku daarayay waxa amni badantii garow waa ahayd waxa qofta tagtay qof ma hadal joojin karo ma caayin xataa maanta waxay tiri war dhalinyaro ila fiiriya bay tiri ila fiiriya Soomaaliya ila fiiriya ninka weyn wuxuu ula hadlay shalayna wuxuu lahaa dilajan aan fanaanad qaran kabta xaajiga shalay lahaa maanta waxa uu leeyahay waa u jeeday xitaa waxay raali gelisay abtigeed cawaale aadan iyo ninka la oran jiray iskalaaji oo ay awal uga helisay oo asdaaday ballinkaani oo miskiinka la dulminayo bal uga ma taqaanaa bal iska tageen marka de xaqi waa cadaaday marka inaalka ma taqaanaa uu ahaa cawaale aadan farnaa qabiil oo qabyaalaysta ay dab maxaa qabyaalaysta inta markaa noqonayso wana laan dheer tahay isagii baa jarjara yaa akhay aad xibba ka saaran gabar abti u tahay weeye حلبة كاسر وقبر فنان قرنا وفي واحد سكبير حلبة كاسر ارجوك سوق ور يا شاء الله كسو حجري هذه واحد كلية هاي جراد اوك سلام يا ارجوك سوق اسلام سلام الله هي جراد هي وابا سلام يا قعس بسوق بنا يا اما جرادك waxa la dhigay ilaa horjooga ma se soo qora saadii sheegna farxiyo ku waa fanaanad qaran waa fanaanad waligeed fanka ku soo jiri jiray waana gabarde isir iyo farac sinjiba leh meel loo raacdana leh dad ay ka dhalatayna ay yihiin dad mas'uuliyiin ah dad maanta wax lagu aamini karo ay yihiin oo laandheerayaal ah marka laangaab oo dhan isku hadlo iska qeylqeeliyo de waa dhici ka dhaal way dhici ka dhaal inuu laangaab qeylqeeliyo laakiin ma si qeylqeeli karo oo qeylada ma si wari karo waa afkaalayaad runtii loo sheegayaa horjooga aad ku salaamaya ku soo dhaw barnaamijka taliye waxay la tacaaw mar labaad baan ku leeyahay ku soo dhaw نو قاعدة وما سنتهاي أدمن كامل علني مع خليف أنا مارتي وعسنتو الكلا مارتي شيء سمع جود راديو حرفه لايف ستريم كا أدمن ما سنتهاي يا أنا مدقرات تلي مركا واحد يقول أنت نكان اللي هذا عوالة أدرت إنه فك الصوماليات كفصدي قبيلة ديستها اسكو بدلي أول ضد كتير ضد تغير أو بقت دلي أي سكيمة تقانا أي بومبورنيين ما أنت وجه ده وصور دعي يقولك كصور دعي مركني كان صومالي ما هو أجنى هو عن فريق أو جيبوتيان أو بقت دلي عن فريق ما ها maxaa qalif iska hubi ninkan waa Oromo waa Charso ma garat qabi Oromo way qabiilkiisa jifadiisuna waa Charso ها ورنك waa noocan fariya tali
نكو هني عنفرية ما هذا أربع أيام نكو عنفري وان ودم الدرس الصومالي كده أروح عليه وعن مركز قصة فضلا الصومالي ما ضم بين بقى الصومالي ده وشيء واحد ما بين بقى سومالي إن مدوين كدنبي وضن كوا بربري أف سومالي ولا برنكرا maxaa khalifo marka ninka waaba nin noocaas tali oo oromo iyo canfari wax loo kala garooway hooyisna waa oromo aabisna waa canfari wax saas waa maqlay maruba ها وارون ويه هويديس ورهوية ماله وآبا ماله ووعل وما عرفت إيش شيء وعنفري ما هنا ها وعل حلال وايو نك قف حلال كدشة قف أما لبوي وعل ويه عوالة أن وعل حلال كلهم ويه آبا ماله هوية ماله وخنيس ما قرأت وصح ويه صح ومقدر واحد أكو اللي يشتري وواحد تعوايو qofku haduu ibnu xalaal yahay oo Soomaali dalaga yahay intuu nin raga ma taqaana wuxuu intuu cod soo diro ma dhaheen farxiye kaba yaraan noocaas nin raga hadda ma naag xitaa nin raga intuu nin ma taqaana suuco dho farxiye kaba yaraan saasa codkeeda mixer baa loo saaraa cod original ma aha hada waa nin raga weey xitaa naag laba naagood oo laba qof oo dumar oo cod isweydaarsada oo isrufiyaama way arkay jirnay laakiin waa laba nin ba hadda ninkii uu diray baa farxiye u soo diray codkii ما غينا دقيستي عدك سوق قلادي ولا فريق كبير صدح ما يسكو درستي واحد ساعه كشكيني يعني والله waa dhageysan waay wis daraadid waayo shalayba aad markii Omar isqabsanayeen oo ah fanaan talab oo hadda ma taqaan baxay waa sax way maxaa khaliif taftiiraha guud maartay radio xarfo aad baad u mahadsan tahay ina barnaamijku ugu casuunto go'aas axmed bulxan baan salaamaya tigi axmed tigiina waan salaamaya aad taliya aad baa ku salaamana sidoo kale waxa ku leenahay adigina hore u soco insha Allah barnaamijyada si badi iyo kalbaaska dhaqanka aku baqlaya taliya عوالة ووعل أبا ماله هويا ماله رجي كسر دويي قبله سوماليد كسر دويي عوالة كسر دويي كندا يا مراي كم بو اسكو دريي اسكو مر درين كرو عوالة كو تمرات تيردي أفرو ولالو واسكو قبيل واسكو ضل واسكو ديجان waxaan ka codsanayaa fanaaniinta Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan qofka ay wax la sheer gareynayaan maanta af Soomaaliga waa la bartay qof walba wuxuu bartay waxa way dalkeenu waa burburay fanaaniin badan baa af Soomaaliga ku hadasha fanaaniin badan baa af Soomaaliga ku heesta yaa liidin hoosgelin farxiye ka waran waxaan leeyahay afti macaan iska ilaali dadka af Soomaaliga bartay iska ilaali gabar la isku dhirin karo matiid waxa tahay boqorad baa tahay boqorada codka Soomaaliyeed baa tahay boqorada waxa tahay fanaanada qaranka baa tahay qaranka meel ka sarreyso calanka buluuga ma ay jirto ma jirto farci ka yare ati macaani silaali waxa weey dad oroma ah oo af Soomaaliga bartay yeensan kula hadlin bahdil waxa weey halla hadlin maxamed sheekhoos agaasimaha radio xarfo qaaradda Yurub iyo Aasiya aad baan ku salaamay agaasimiye aad ya taliya aad baan ku salaamaya insha Allah qayb baan ku rajaynayaa taliya barnaamijka waa sii wadayna insha Allah إن شاء الله ما صنتها يا قاسم ما صنتها. أوكي تلي هذا أبو سلامية. كاسرة وحوا تليه إذا ماذا بنتلان تليه شو سكفة وهذا وفيس كتير بكا جرملك هذا واحد سوق مريا وجانس كسين دورة هدي له إذا كان قعص أحمد بلهن ويصوره كم ذا قعص كومالها إفيد كل هذا وح معي سوق السوق. marka runta u sheegaynaa hadii runta la isu sheego ceeb maaha anigu wallaahi billahi talla fanaaniin badan oo Soomaaliyeed waxa jira cawaale aadan u daba dhaqaya oo u heelanaya oo kaliya iskaga duubaya sidii ay u difaaci lahaayeen shalayna cawaale aadan uga heelinayay Omar maantana raba inay uga heeliyaan qofta la yiraahdo farxiye kabayre fanka intaas sano ku soo jirdhay fanka heebad u leh oo codka Ilaahay halaasiga siiyay maantana dadkaas raba inay u heeliyaan baan runta u sheegaynaa istuubidiinta ah قعص كمالها يسوع سيا كوسو قبته مركا أخيارات صرفت البرامج نص الشرقية برامج كان كهذا إنه واكاس أرجو ما أقولي إن الجاب فن عن ميل أقولين فن ميل عن أقولين ويهين أي سكجرين إنه ما تقانا فنانات الصومالية أنا أقول لي قانو أسلوب بربرديجو ورنه ورب الفنانات ده أنا بمتقانا ترى كل عوالة هذا اللي يقول شيء جاي إنك اللي يراده عمر والله وبالله الله عاوة بالرموبي أو إلهي يسرية هذا الكائن شيء أو شيء إنك اللي يراده عمر روح
ninka la yiraahdo buu dhahay ninka la yiraahdo cawaale aadan markuu rabo inuu soo camba ama yacni hadalkiisa la soo qaado ila maalmihii dambe hadalkiisa lama hayre waxa uu sameeyaa fanaan buu kusoo dhigaa si loo bumbuniyo oo cawaale aadan baa saa sameeyay fanaan buu ku dhigayaa hadda maanta wallaahi billaahi tullaahi waxa uu rabo wax kale ma in fanaaniinta Soomaaliyeed halka ay dagaal la galo oo la yiraahdo midna la dhaco cawaale aadan baa u hilaynaa midna la yiraahdo faxiin kama yira halka la soo qaado maalmaha kan oo dhan lama bumbunin ilaa inta kaliya buu rabay haye runta u sheegayna canfiri dalay oromay stupid baqti laagaab ciisaha jarjarka ee Djibouti daga maanta iskuma dhirin karo gabar mursada oo laan dheer dalay oo maanta hawiye maanta dadka kaliya maanta hawiye ka socdo oo mursada oo hooyadeedna bicdiyaha tahay dadka maanta ma jeertaan qoriga u wata oo u dagaalamaya ma wiil ciise ba isku dhirinaya oo mataqaana Djibouti diga adduunyada ilaahay kama badhicin ba ismana lahayn way dhacaysaa laakiin codkaas markii la keenay bay dhacday oo in nin mataqaana saas oo bahdilan oo baqti ah oo isku dheeriyay gobar laandheer isma lahayn ba Umar Usmaan Ibrahim aad baan ku salaamaya tigay jaamac tigay aad baan ku salaamaya waa ku soo qabanaya waan ku soo wacay insha Allah barnaamijkeena degdeg u qabanaysa rajaynayaa marka barnaamijkan ka hadlaynaa barnaamijkaas runta idin sheegaya Soomaaliyeey anigu cidna ka xishoomayo ilaahay baan ka baqayaa sida loo kala laandheeraysan yahay fanka lagu kala horeeyay waan sheegayaa fudusiyad dhabta ana oo sheegayaa yaalayreena telef soo galay ويسان عوالها عن فريق أوكس كده وكسلام يا تيجي كسر برامج وكسلام الله دير وكان هذا يمثل كسر برامج وحيلتها ولا سعته وحن كجاه الله يناول كعفريق رمض كده الشيء اللي يراد عوالة آدم أرأيتي إنه فنانين في هذا قرق كسر جنسي أول وحوار البورني معلمان هذا الكيس لما مقل مركب برامج وكان مثل زين جاورة تارت barnaamijkaas niyow waxaan u arkaa hawshaasu maaragtay ayaamahanba waxa socotay isku dhararin dhan kasta ma garatay marka waxaan leeyahay dee meeshaan maaragtay social mediaha laguma kala xishoon oo dadkiiba is soo gaaray oo maaragtay dee hala wada walaaqday noqoto hala wada walaaqo la isdaba yaaco ma garatay wallahi fan baan la isku tixgelinayn la jannimaan la isku tixgelinayn maaragtay laandheernima la isku tixgelinayn wax la isku tixgelinaya ma jirto wallahi beenta ma aha oo waxaan boogaaday markii sheekadu tahay deerta hal la galo oo wixii la rabaa lagu dhigo markii cawaale aadan uu isku dhereeriyay ninka la yiraahdo Omar waa ka aamusay oo nila dheera uu isku dhereeriyay waxa ka darnayd markii uu farxiyo ka wayro oo la ogaa ilaahay baa idigu dhaashay oo fakeeda waligeed la dhigaysan jiray oo Soomaali oo dhan ay ka dambeysay markuu isku dhereeriyay oo hoos uu ka galay oo dhahay halkaas ma taqaana inta kaliya aan ka xumaaday inta kaliya aan aadka uga xumaaday waxa weeye anu waxay rabaan iska sheegaan laakiin inta kaliya aan ka xumaaday wax صح واقرت ما مغليسا هلو waxaa ka maaday khadka ka xumaaday barnaamijka wadanaynaa haddii ilaahay idanka ka dhigo akhyaarta sharafta leh ee barnaamijka la socoto waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad marka sina sheergareeya barnaamijka yaa ilaahay si sheergareeya barnaamijka wax dhaba baan ka hadlaynaa dad waaweyn oo legends ah oo la yaqaano baan soo qabanaya haddii ilaahay barnaamijka soo qayb gelinaya waayo anaga uma dulqaadan karno intaa ka badan anaga farxiyo kaba yaro fanaanad caan ah oo la yaqaano in maanta uu laangaab ahday la yaqaan fanna aan ku soo jiri jirin weligiisna aan waxba ahayn in uu isku dharariyo dooni meeno oo midda aan kaliya aan ka soo horjeedno marka akhyaarta sarafta la soo dhawaada gocos baan sugayaa in mataqaanaa khadka uu hagaago ninkaas kale ee la yiraahdo tigay khadka ka xumaaday isaga marka ninka kale aan sugaynaa khadku inta uu hagaagayo أقدر قاعد يوري يوحى مجد واحد طبعا كهالينا لو واحد جره وما أنت كهالينا لاقى سوق أبو وده هاي نكال إرادة قعص ولا السوق رسالة كو سوق بتوكم أركو إلى هذا برنامج كوسي وضنا يا أنت خدك كوها جاي مركا نكال إرادة عوالة آدم واسيد هذا وررك نجوسو جاري يندلك كندا أي شرعية كلا الله بري مردو
haddii uu dalka Canada marka sharciga kala laabto sharciga uu wadanka ku joogay maxaa dhici kara ma inuu Soomaaliya aado mise inuu Djibouti ku laabto dadka qaarkood waxaas isweydiinayaan marka aniga say ila tahay Djibouti buu ku laabanayaa daasirihiisa ka tumanayaa ilaa awalba fan meesha kuma joogin wax qararaci wuxuu ku joogay been marka akhyaarta sharafta leh runta fiican la soo sheego anigu awaala aadan iyo yaryarkan kale oo la safan in aan ka xishoodo oo aan wax u sheegi waayo horta aniga hayga filanina anigu runta u sheegaya laangaab oo dhan iyo wixii bahdilan ee social mediahaas ka qeylinaya ee doonaya in ay mataqaanaa awaala aadan ay qiil u raadiyaan runta u sheegina awaala aadan maanta qiil ma baleba fiifa awaala aadan baa dhahday 19,000 oo fiifa awaala aadan soo qoray waxa uu yahay waa sheegina dhow lebentu runtu isma qarsay hadda maanta dhan fiifa awaala aadan astaageeraysan oo aan leeyahay awaala aadan waa saas waa fanaan qaran waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan dadka Soomaaliyeed jecel yihiin maxaa lagu jecel yahay ma meestaan ma qabyaaladdan iyo doqonnimadan qaawan ee uu fanka ku hayo Soomaaliyeed baa lagu jecel yahay waa maya dius dhalay oo baastra oo hooyisna oromo tahay aabisna amxaari yahay inuu yahay ba ognahay mataqaanaa fanka Soomaaliyeedna dhaqan xumo iyo isku dirdir iyo fanaanin uu caayo u jooga baata wallahi billahi tullahi beeku sheegay awaala aadan dalka aad joogtid ninka ugu sareeya baa ninka qayb ugu sareeya Soomaali oo dhan ninka mataqaanaa meeshaas ninka wax ka akanada maanta waan ma jeertana waa la yaqaan haddii lagu talagalo in dalka laga tarxiliyo the 1 minute ku qaadamayso in laga meesho dhan laga cayriyo marka dadka qaarkood waxa aan aamintay fanaan caara inaad tahay dad ku taageer waa leedahay anaga ma taqaanaa iyo haddaan noqon lahayn dad taas oo kale waxna taageer ma weynin Soomaalida dhaadhaamaa jira ay iska buufsanaysid waxa rabtid ku dhahaysid hadaa maanta aad ku socotid meel god ah oo hadii Ilaahay ku idmaayo de Soomaali wax sameeyay aysan jirin mid baa ku taageeraya marka awaala aadan fankaaga in la taageero waxaan la yaabay maaha oo qof Soomaaliyeed baa tahay qaybna waa ku saaraysaa qaybna waa ku mucaaradaysaa sana maanta 100% waxa loo maleeyaa 80 ama 90 in mucaaradkaaga ay tahay 20 kamid ah oo isba dhaata ay habar gidari isugu jira yaryarka kale waxaas ay haysaa ku qancinaysid maahe Soomaali inta kale waa ku fahamtay waxa tahay baa la fahmay inaad tahay qabyaaladiisto xun oo qabiilka aaminsan oo ummadda Soomaaliyeed isku direeya baa la fahmay ana runta ku sheegaynaa waxa tahay baan sheegaynaa qabyaaladiisto xun oo cadiifad iyo aqli waxa la cadiifad iyo cuqdad ay disay gabadhaasna gabadha xitaa waxa uu xumeynaya oo uu caayay wax kale maaha gabadha ma jeerteen baa abti u ah ninka la yiraahdo Omar bay is hayeen maxay ba isku hayeen oo ay isku dagaalayaan waxa la maxay ba abtiga ugu yihiin waaba inta kale oo u nacayo wuu diiday leeyahay inay tahay qoftaas waa qof mataqaanaa murursada ah qof laandheerada ah maanta markii la fiiriyo murursade iyo qofta iyo ninka la yiraahdo awaala aadan tifidiisa adeer isku mid maaha waa magaalo guuraysa iyo tuulo marka tuulo iyo magaalo guuraysa isku mid maaha dad la yaqaan iyo dad baqti dhalay oo waxa ay yihiin jirin awaala aadan baa ka sheekeynaya awaala aadan dad baa Ilaahay hadda waxay u haystaan yahay nin kuwa waxay u haystaan dir kuwa waxay u haystaan yahay nin muxuu ah kuwi kale oromo kuwa canfari u haysta awaala aadan hooyadiis dhashay ee naaska nuujisay waa canfar weeye aabihiisna waa oromo weeye marka waxa uu ku abtirsadaa oo uu qof mataqaanaa ina tusaalahan awaala aadan u yaata markii lagu dhociisay waxba dhimayo أنا وحنا هنين عنفري أو وحنا هنين أرما هوي ديسنا وعنفري عنفر بأبتو عنفر قليها اللي هذا تبوت دقة وأف صومالي جبا أنا قون بأبتو هوي ديسنا وعنفري وأبتو سوا أرموي أرما ده كوا إثيوبيان كأوي حبس ده مرك حبسي مركي لو صومالي أنتي لبري نوهس تهار ما يقدرن نو فنان بانوين ميا فنان نويس موين إلهي بانكود أشياء أرمو بخت اللي تنويس يعني لا جابيا وربعين فك الصومالي دعون متبقى دين سيجيا كله أو ضدك الصومالي بدن كود أيسن أوين سكان رئيس كفريا متبقى دين سيجيا الصومالي ما أنت هذا اللي يقرأ عوالة آذن هدي وهز دم السوقة هز دم أفكي سنتوك السوقة إن قعد صاحب الهاتك السوقة بنيا والله لا يهدكم هاي بل يسوع عوالا أنا هدو هيز دم السوق هذا
oo codka ugu macaan ku soo qaado oo ku soo luqo oo wixiisii heesa macaanig waa qaadi jiray waa la taageeri jiray horay heesiisa haddaa youtube-ka u baadhid malyanaa daawaday laakiin mar dambe hadduu hees soo qaado oo la daawado oo malyana ay daawadaan maradaan ku jiro nin kuma jiro baan ku dhahay anaa idin dhahay maradaan ku jiro nin kuma jiro haddii mar dambe la daawado heestiisa heestii ugu dambeysay uu soo qaadayay Omar mataqaanaa ku sirbeebay oo lahaa hanka ruux ka saba oo la garaadka saqiirka wax saas oo cala calayay Soomaaliya isin jibaanay beenta ahayd orday fiiriyay inta daawatay xitaa 300 oo kun ma dhama wax yar baa daawaday oo la og yahay wax ay oo qabiilkiisa isku jiro maalin walba kuwa ku celceliya xitaa fiisku si uu bato marka maanta laga bilaabo malaayiin ku daawamayso dadka malaayiin tu daawan doonto waa ninkaleeda Omar iskalaaji farxiyo kabayere haddii ilaahay ku imaado fanaaniinta caanka ay kale axmed biif fanaaniin aana baa jira oo kaa cod macaan xitaa adiga codkaaga waa ku ognahay meelahaas ka qalqalaataa xoogaa waa ku dardhaa jaca ku siisaa baas mixerka ah hadhow baa lagu malaynayaa inaad nin codada tahay anuu runta u sheegayaa cawaale aadan ninka ku qabiilka ah ee oromada ah ee canfariga hooyadiisna tahay hadda waxaad samee runta u sheegayaa anugu runtana anugu kama gabado haddii maanta la idilayo oo wallaahi oo bilaahi tullaahi halka xabad la iga hayo runta inaan sheego waa ku dhimanaya wax ugu sharafta badan in qofka uu ku dhintaba yani maanta wax ugu fiican in lagu dhinto waa runta iyo ilaahay mataqaanaa sidoo la ilaahay tawxiidka iyo runta lagu dhintaa marka cawaale aadan miyaa ilaahay ma ku dhashay oo ogtiin cafar hooyisna cafar tahay abiisna orma yahay miyaa waxa weeyna fanaanid caan ah oo farxiyo kabayara oo la yaqaan waligeed heesas la dhageysanayay inuu cod intuu soo duubo oo nin saaxiibkiisa u diro dhaho bal codka in aad waxa leeyahay uu soo diro dhaw wareer farxiyo kabayara saas codkeeda loo saara wareer wuxuu waaba naag baa isdhahay dhaqan ma baa le nin reega baa la arki jiray ximiye nin qof dumar ah ku hoos laabanaya ka waran oo halka la kaba qaadaya oo waxay dhahdo say waxa hadda anigu hubaa oo wallaahi billaah ku dhaaranaya biri subax in uu ama saadama inuu video soo duubayo ugu jawaabayo farxiyo kabayara waxaan ma heshoodo waji heshoodo ma baleba waji heshoodo male maanta daa la qaadid in maanta daa mataqaana wax yar dhaadid sabay mataqaana oo aydid uu kula guranaya haye kuwa waxay soo qorayaan farxiyo kabayara iyo cawaale aadan waa dad fanaaniin maxaa uu kala helinaysaa aniga qofka khaldan waa la qabanayaa cawaale aadan waa khaldan yahay waa khaladkii labaad ee aan ku qabanay awal buu Omar dhaqan xumo la aaday oo aan wax ummadda Soomaaliyeed aysan macquul oo aan maskaxdeeda galay naga dhaadhacsi aniga bil ka waran ninka fanaan dhalinyaro ah oo hadda soo koraya u diidaya inuu hees qurux badan soo qaado u diidaya inuu ka hormaro isaga in laga hormaro oo daaqada laga tuuro buu ka baqayba u diidaya inuu hormaro u diidaya inuu la xifaaltabo u diidaya inuu maanta horumar ka gaaro fanka oo godka raba inuu ka rido ka waran ninkaas ilaahay ku dhaashay ninkaan wax la difaaco u ogyahay xitaa haddaan isku qabiil ahaan lahayn ilaahay qabiilkiisa igama dhigan iyo orome haddaan isku qabiil ahaan lahayn wallaahi bilaahi tullaahi baan difaaceen cawaale aadan oo fiifo cawaale aadan waa laandheere iyo cawaale aadan waa saas waxba aan igama gelin cawaale aadan wuxuu uu yahay waa idin sheegay cawaale aadan bakti dhalay oromo ah hooyadiis cafar tahay Soomaali maaha ninkan amxaaro inuu yahay waa ogaaday tartanka tartankii hore ee mataqaan uu qaadi jiray ninka la yiraahdo Diamond waa xasuutaan markii la dhahay Soomaali miyaa ka socotaa wuxuu dhahay waa u jeeday wuxuu dhahay aniga Soomaali ma ahay buu dhahay waxaan nin Djiboutian ah Djiboutian ahaan buu ku galay fankii waana ninkii la reebay meesha fanaano cod laba maraya aduu cod baa leedahay meesha waa ooyaysaa ooyina laga rabo meesha cod waxa laga rabay qurux badan baa laga rabay mixer la'aana live baa loo qaadayaa haysa marka adeero runta ku sheegayna wax runta ku sheega waa weeydi cawaale adeero inta Soomaali ka aamusneed oo la lahaa warbalinkaan iyo iska warbalinkaan bal mataqaana hadii ilaahay ku idmaayo bal ha loo soo dheereeyay ma dhaweyn marka runta ku sheegaynaa fanaaniintan caanka ah ee aad la tirsanaysid kabahooda tuur waxa ku soo slaabataa Umar Shuuli iyo dadka mataqaana hadda YouTube-yada ka baxay sadaqsayga iyo yaryarkaas kale soo baaxso dadka aday ka cilmi badan yihiin yaa akhi waa dad la yaqaan la jinaysa heesooda la daawado maanta heesaha ayaa daawada maanta maxaan ahay baa ummadda Soomaaliyeed nin walba maanta maxaan ahay buu leeyahay
maanta maxaa ahay baa laleeyahay shalay haddii malaayiinku daawanaysay oo lagu kala kicinayay oo la fanaan Soomaaliyeed baa tahay oo fanaan la jana baa tahay oo fanaaniinta codka macaan baa ka mid tahay Soomaalida laga soo xusho oo fanaan mataqaana Soomaali yani Soomaalimo ku faanaya baa tahay haddii lagugu difaacayay maanta waxaa keentay inaad fanaaniinta Soomaaliyeed qabyaalad dhex dhigtid qabyaalad inaad dhex dhigtid baa keentay oo fanaaniinta Soomaaliyeed aa caydid fanaaniinta Soomaaliyeed aa codad kala duubtid fanaaniinta Soomaaliyeed aa ximisid fanaaniinta Soomaaliyeed aa ka dhex shaqaysid oo iyagu dhan maqas aa ku dad maqas fanaaniin saaxiiba abu xitaa dhexdooda kala jaray ka war oo xiriirkooda kala jaray oo isku diray oo halka balaayo ka shaqeeyay wallahi billahi tullahi ninkaas wax laga xishoodan baa waa khaa'inul wadan weeye waa khaa'inul fan waa khaa'inka fanka weeye kocsow waa fiirinaya inuu ku leeyahay Mareykan waa fiirinaya isoo codso bal adiga soo codso live-kayga soo codso ku approve-gareynaya soo qabanaya adiga dhankaaga kuma soo qaban karo adiga ninka la yiraahdo gocos marka isoo codso si aan ku soo qabto marka adeer gacaliye bal Saciid Axmed oo dhahay isaguna barnaamijka ka qayb qaadanaya waa soo qabanaya isaga waa u leeyahay waa soo qaban karaa marka adeerow gacaliye runta u sheegayna wixii taageeraya iyo wixii cawaala aadan ku hayo waxa tiin waa la sheegaya waxa maqli jireen meesha baa la yiraahday nin aan talin jirin hadduu yimaado kuwa aan tagi jirin baa tagay adeer fanaaniin la yaqaan baa meesha soo galay nagada marka waxaan aan sheegaysa iyo dhaqan xumada tan iyo qararacda aan ka sheekeynaysa anoo waa ku naqaan tuug dalay baa tahay qaa'id ah waxa uu yahay ay iska dhahay stupid ah fanaaniinta Soomaaliyeedna sun dhex marinaya ma waxa rabtaa in adiga lagu dhageysto oo kuwa kale aan la dhageysan ma waxa rabtaa in adigu horumarid oo kuwa kale aysan horumarin ma waxa rabtaa in adiga kaliya fanka Soomaalidu uu maqaaxi ku noqdo dad ku daaran marna aad dansanaysid marna ma taqaan daaranaysid dhicin mayso waxaas horay uma dhicin waxaan ku leenahay caaga dhigo fanaan baqtiya baa tahay oo ummadda Soomaaliyeed qabyaalad ka buuxiyay waa garaadka waxaan leeyahay waa islaamkii bees ma jirteen aba harti islaam maxamuud khaliif oo ku magac dheer islaam shaakhus oo caawa ma taqaana cawaale ah runta u sheegay wiilka canfar waxa wiilka hoos canfariga tahay aabihiisna oromada yahay ee qoyska oromada ka soo jeeda in runta la isu sheego waxa laga gabado maaha ka gaban mayno runta u sheegaynaa stupid baa tahay baaster ah ka daafanka Soomaalida daacunimada iyo baqtiga ku midid stupid ku aaday wacalka ah xaaraanka ah iiga ah jareerka ah amxaariga ah oromada ah canfariga ah Soomaali naceebka ah ee qabyaaladaystaha ah ee dulli ahaaday fankana aan waxba ka aqoon oo daacunka ah fanka Soomaalidana khasab ku soo galay oo qararac iyo balaayo ku soo galay oo waa waxaan la aqoon ah stupid dhalay ah wallahi billahi tullahi ninkaas inuu xalaal ku dhashay oo maleemayo wax awlada xalaal ku dhashay saa uma dhaqmo dadka intaas dhan ma dhibo dhaqan xumo lama aado xaraan iyo waxa ku dhalatay istumidnimo iyo wacalnimo iyo mataqaan adoo awalba wacal ah ba waxa isku sidarsatay inaa hooyadana canfarta aabahana orma yahay jareer dhalay wacal ah meel uu ka waana garanaysa dadka Djibouti degan wax u badan yahay wada jareer iyo mataqaan waxa la aqoon oo jarjarkaas mataqaan lagu tiriyo 0.5 ka markii adeer gaxaliyo oromo dhashay anaga fan laguma xifaatami karo gabadha caanka ah ee fanaanada la yiraahdo Faxiika Wayran waxa leeyahay hore isu caabtay fanaannimadaada iyo codka Ilaahay ku siiyay haybada ah oo aad ku heesaysid Ilaahay baa ku siiyay dhaankan ku leeyahay joojina hore u soco waa mataqaana waa islaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo dunida ka joogtaan iyo suul walba oo maqlaysaan waxa idin leeyahay cawaale aadan oo waa fashilmatay fanaaniinta kale ha u soo dhigan rag ka cod macaan baa imaaday meesha siida ka bax daaqada Soomaalidu waxay ku maahmaahada mataqaana doqontu waxa la yahay ninka la yiraahdo xasan aasma ruuxu dhan maamaha ii goysay maamaha anoo soo wada ii goysay marka hees baa u bedelaya ilaan doqoni deerka ma kaaga cadee daamanka bay meermeeraysaa daamanka iska meermeeraysaa maanta oo dhan way kugu soo horjeedaa laga wacalsanay xaaraan oo baqti ah oo stupid ah oo ciisaha jarjarka ah ee yaryarka ah wacal dhalay oo khaniisa baa tahay wallahi billahi tallahi naasa ina doorto kaliya ku dhiman hadda ba keentay fanaanada caanka laga dhigatay oo hadda keentay inaad iska dhigtid nin bala ka dhacday awal maxaad ahayd yaaba ku yaqaanayba
stupid kaara baasirka waan islaamaya aaba idin islaamaya anigoo ah lander dhalay ma jirtaan ciise maxamuud ah islaamka beesha daarood aysan cidna qaban karin wallaahi billaahi tullaahi baysan cidna i qaban karin cidna maba aaminsan cid baa ka awood weyn war aniga wallaahi billaahi tullaahi landernimada lagu sheegayo afka laga sheeganayo maaha waa qalbiga waxaan aaminsanahay maanta haddii aan fanaan ahaan lahaa ama qof kale ahaan lahaa in aysan meeshaan maroraadkayga xitaa ay tirtiri lahaayeen aysan cidna ila guranayn maanta maxay tahay cawaale aadan oo canfari hooyadiisna tahay isaguna oroma yahay kula gurto diinta alla idinka saaran muuxaas aan laga maanta mataqaana daawan karnaa maba daawan karna kamana hadli karno war aad baa idin salaamaya meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba ood maqlaysaan waa ogaaskii waa islaamkii waa laandheeri dhalay oo idin leh farxiyadii hore u soco cawaale aadanow meesha waa ka baxaysaa wixii ku dhalay iyo hooyada iyo allaha mataqaanaa khayr allah siiyo anuu caaymayne adigaa doqon ka noqday baktigu dhalay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أبا أدين سلام يا شعب الصوماليين مول بودني ذاك الشوكتان يسوع البودين مخلصان